ما شاء الله maanta waxaa noo joogo wafdi ka yimid South Africa waxaan rabnaa inaan soo dhaweeyno insha Allah aan u duceyno wafdigaas waxaa kamid kan garabkayga taagan waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Guura Cabdulle ninkaana waxaa lagu soo gaabshaa magaciisa Juxa yaa maqlay waligiin sheegada Juxa caan ma ho okay Cabdullaahi Guura yaa maqlay dhammaantiin waa maqasheen miya maxaa ku xasuusatiin darkii ciidda ma idin gaday maxaa kale ما شاء الله marka maanta maxaan ugu abaal gudnaa qof kasta hal neef oo geela ha keento taas ma sameeynaa ma soo u duceynaa ducada noo fudud miya maanta bis ma u duceynaynaa ma maalin kasta u duceynaynaa ما شاء الله عبد الله Guure iyo Juxa iyo mataqaanaa ragga lamida waxaan ka rajeynaynaa ma maqlaysiin hadii aan u duceyno maalin kasta oo mataqaanaa businesskooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda Ilaahay u barakeeyo maxaa dhacayo mina ilooyaan mase wax bay nala qabanayaan waxay nala qaban doonaan insha Allah inaan dhul gadano dhulkaas aan ka dhisano iskuul qaybta quraanka qaybta jiifka qaybta cuntada qaybta jiimka qaybta sheekada qaybta shaaha wax kasta la soo sidaas maan marka waxaan u baahanaa inaan mar kasta u duceyno mar kasta oo salaad dukano mar kasta oo aan bareega ku jirno inaan dhahno Cabdullaahi Guure Cabdulle iyo groupkiisa Allah garabkooda galo soo sidaas maahan ما شاء الله marka waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdigan ku soo dhaweynaynaa Cabdullaahi ayaa noo hadli doono Cabdullaahi waxa kale oo ku xasuusanaa 20 adinka idin kamida ayuu kafaala qaaday ayuu wuxuu baxshaa iskuulkooda iyo mataqaanaa wixii loo baahnay insha Allah wuxuu kale yahay wakiilka المستقيم South Africa qof kasta oo South Africa joogto oo halkaas naga daawo doonto waxaan u sheegaynaa Cabdullaahi hadii ay $1 nagu sadaqaysanayso qofkaas iyo hadii $1 milyan oo dollar la baxayso sakadeeda hadii la baxayso Cabdullaahi Guure inuu mataqaanaa uu yahay wakiilka South Africa المستقيم dadka mataqaanaa المستقيم ay ku dhisantahay Ilaahay ka sukoone inuu asaga mar walba number 1 ku yahay bacdi salaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan idin kala soo qayb galo iskuulka المستقيم foundation sidaas oo kale waxa aad ugu faraxsanahay in ardayda qaar kamida in qaar ilmihii aan arkino mas'uuliyadooda aan qaado aatiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad xasuusinaa ilmahaas oo aan mas'uuliyadooda qaaday in ilmahayga kale ay lamid yihiin dhammaan adinkana in ilmahayga lamid yihiin mar kasta oo adinka wax u baahan tihiin anigana aan awoodo inaan garabkiina taagnaa doono insha Allah taala waxaan rajeynaa maanta dareenkayga lama soo koobi karo farxad awgeed intaano ma arkino arday Soomaaliyeed aqoon iyo qaarkood aan iska bixi karin iskuulka ina maanta aan meeshaan la soo istaago qayb kamidana aan ka noqdo inaan fiiga iskuulkooda aan bixiyo aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta waxaan rabaa inaan dardaaran u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ee adduunyada joogaan inay المستقيم foundation ay qayb ka noqdaan intaano ummad oo Soomaali oo arday Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo horumarkooda hadii qayb laga noqdo waxay la mid tahay ayadoo Soomaaliya oo dhan la dhisay ayadoo ummadda islaamka loo gargaaray waxaan rajeynayaa in maanta aan noqotiin Soomaaliya dadkii badbaadi lahay oo dalka iyo dadka iyo diinta difaaco barina ayaga inta hoos nimaado inaan caawisiinaan rajeynaynaa insha Allah taala maanta anaga wax yar idin caawinayno laakiin bari insha Allah hadii wax si naga noqdaan ina guriina ku noolaana rabnaa hadii al yiraahdo waxaan rajeynayaa in adinkoo dhan qof kasto adinka idin kamid waxa mas'uuliyada saaran waxbarashadiina ku adkaysta fursada maanta hesheen anaga ma helin markii aan soo koreyna qaarkood wadanka burbur iyo dhibaato badan ka jiray waxbarashada ka faa'iideysta insha Allah taala anagana waa idin soo duceynaynaa Ilaahay idinkiis guulaan idin rajeynayaa aniga magaca المستقيم waa igu cusub yahay shalay la sheegay kama qayb qaadan oo fursadaas ma helin laakiin hadda ka bacda la yiraahdo waxaan rajeynayaa inaan kamid noqdo odayaasha ama samafalayaasha المستقيم waxa kale ugu baaqa fursadan inta Ilaahay wax siiyay oo Soomaaliyeed oo adduunka daafiisa kala joogan inay ka faa'iideystaan fursadan walaalood noo faa'iideeyaan
dareemi karnaa xilli kuleyl la joogaa qorax bannaankana waa taagantihiin inaan kalimaadka ama hadalka sii dheerayno wax macnaa ma samaynayso laakiin ujeeddada waxay ahayd inaan kala qayb qaadanno idin dareensiino inaan idinku faraxsannahay inaan idin garab taagannahay inaan idiin baahannahay adinka saad noogu baahantihiin oo kale waxa ugu weyn oo hadda aan idinku nimid waxay tahay inaan gaarsiino dad badan oo Soomaaliyeed oo deeq-bixiyaal ah oo ka faa'iideysan lahay fursaddan sida Cabdullaahi uga faa'iideysto kale in ay warbixintan gaarto si ay berri uga qayb qaataan una taageeraan Al-Mustaqim waxaa laga yaabaa markii ay dadku ay maqlaan hay'ad samafal ama agoon la caawinayo ama iskuul in dad badan aysan fahmin oo ay fikir qaldan ka aaminsan yihiin markii meediyaha laga arko ama laga arko telefishinada in la isleeyahay waxaan wax program sax ma ahan laakiin marka aad Al-Mustaqim timaado wajiyadiina aragnay adinkeedii soo hor istaagnay waxbarashadii macallimiintii iyo maamulka aragnay waxaan rumaysanay in Al-Mustaqim iyo maamulkeedaba wixii loogu talagalay ka badan ay qabanayaan garabkiina taagannahay cid allaale cidda ka faa'iideysana fursaddan gaarsiinaynaa waa idinla joogi doonaa insha Allah waana mahadsantiin waan saasan kusoo gaaban Cabdullaahi Guure iyo gruubkiisa ilaahay waxa ay jecel yihiin ha siiyo Cabdullaahi Guure waalidkiisa wanaagan iyo khayrkan ku soo barbaariyay Allah wanaajiyo khayr badan Allah siiyo intii dhimatay Allah u naxariisto oo waalidkiisa familkiisa kamid ah intii noolna cimrigooda iyo caafimaadkooda Allah noo dheereeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa Cabdullaahi Guure meel wuxuu joogaa dhibkeeda halisteedu iska badan tahay ilxun inuu ilaahay ka haayo dadka dhan ma taqaana oo la shaqeeyo intuu arkaba baariyaal Allah uga dhigo insha Allah ducadaas waxa uu naga mudan yahay iyo ducadii oo dhan ma dhigi karna laakiin qalbiga uga duceynaynaa ilaahayna wuu na maqlaa wax kasta oo khayr ah oo qalbigiisa ku jira ilaahay ha siiyo wax kasta oo shar ah iyo shaydaanna Allah ka xijaabo marka insha Allah sidaas ay noo naqanay waxaan ka rajeynaynaa Cabdullaahi iyo gruubkiisa in ma taqaana meesha hadda aan taagannahay ayagaana soo gaarsiiyay ilaahay ka sukow inta ma taqaana qaybta ugu weyn ku lahay inta dhiman oo aan rajeynayno ay kamid tahay meeshan guriyahan aan degayno sanad kasta nagala bixinayo mustaqbalka insha Allah inaan ka raysano oo ma taqaana sidii masaajidadan waaweyn loo dhisayo amal Soomaalida dhan ay ka qayb qaadan doonaan laakiin ayaga noo bilaabi doono insha Allah dhulkii iyo nidaamkii ayagana hawshaas maskaxda iyo dhaqaalaha ay ku qabalahaayeen ilaahay ma taqaana hasiyo waana ka rajeynana wayna qaban doonaan waana ku kalsoonahay ayagana ma taqaana insha Allah Allah barakeeyo xoogooda iyo xoolahooda Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda buugaagtooda qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa